inanta fahmi waxaa ka codsanaya inay aqbasho maadaama ahay nin la dareen ah oo ka dhiidhiyey xumaantii loo geystay. waxaa ii qorshaysa inaan gabayo badan iyo maasooyin inaan u sameeyo inanta, inaan weynaysiiyo, inaan buug ka qoro. inantu waa inaan wanaagsanay, inaan gumeed baahay. halkan waxaa igula sugan cabdiraxmaan oo qoraal boggiisa ku baahiyey ku sheegay inuu fahmo oo tiktok caanka ah uu guursan doono isagoo Hargeysa jooga. cabdiraxmaan waan ku soo dhaweynayaa. arrintaa horta maxaa ku kalifay? waxay igu kalifay horta inantu waa inaan wanaagsanay, inaan gumeed baahay, ma garata. marka anigu waxay ila noqotay inaan hablaha u muujiyo inay weli jiraan wiila la dareen ah, ma garata. marka waxay igu kalifay waxaan doonayaa inaan jiraan anigu asturo ayaan doonayaa. waxaan jeclaystaa in indhaha bulshada xumaanta ka sheegaya inaan ka jeediyo, ma garata, oo dhanka wanaagga ku soo jeediyo koobdhe. marka inanta waxaan doonayaa inaan asturo, waxaan doonayaa inay xaaskayga noqoto inantu haddee iyadoo ogoshahay, ma garata. qoraalkaagii dad badan baa qaaday ka feel celiyey siyaabo kala duwan uga hadlay. ku dhaliila qoraalkaagii qoraalkayga dad badan baa ka falceliyay, xitaa dad badan way la soo xiriireen, ma garatay, oo dhiirigelinaya oo igu waad wanaagsan tahay. xitaa habla badan baa ila soo xiriireen oo yiri wax ay rag badan ku dhex waayeen ayaad samaysay, halkaa ka sii wad. hadday ku aqbasho ka war, haddii inanta ku soo aqbasho inantaas haddii ay aqbasho insha allah waxaan rajaynayaa inaan weynaysiin doono. waxaan rajaynayaa inaan anigoo abwaan cabdiraxmaan ah waxaa ii qorshaysa inaan gabayo badan iyo maasooyin inaan u sameeyo inanta, inaan weynaysiiyo, inaan buug ka qoro jacaylkayaga. hadday aqbasho waxaan rajaynayaa inaan xaflada ugu qabto magaalooyinka waaweyn, muqdisho, hargeysa. wix aliya wixii xumaan ahaye inanta laga geystay waxaan ku rajo weynahay inaan ilowsiyo. fariintaada iyada u diraysa maxay tahay? fariintaada u diraysa maxay tahay? fariintaan inanta u dirayaa waxay tahay inanta fahmi waxaa ka codsanaya inay aqbasho maadaama ahay nin la dareen ah oo ka dhiidhiyey xumaantii loo geystay. marka insha allah waxaa ka codsanayaa inay aqbasho inantu oo ii soo dhaweyso maadaama walaalkeedoo kale aan ahay oo la dareen ah. haddii ku aqbali weydo ka war? haddii ay aqbali weydo inantan dhib maaha, oo marka horeba dhib ma laha. haddii ay aqbali weydo markii horeba aniga waxay ahayd naxariis iyo wanaag u samayn bay ahayd. marka haddii ay iga aqbali weydo waa iska caadi, dhankaygii waxba iskama bedelayaan. ehelkii markii ay arkeen qoraalkaagaad qortay Facebook ku qortay maxay ku yidhahdeen? qoraalka iyo muuqaalaan waxaa dubnayba way arkeen faamilku. anigu waxaan ahay nin dad leh, ma garata. marka insha allah meelo badan balama ku leeyahay, kolley waa lay kacaya, ma garata. nin reer Hargeysa ah baan hoo dad iskooba, ma garata. markaa faamilkaygu way arkeen, laakiin cid ujeedadeeda iga leexin karta ma jirto maadaama ahay qof maskaxda isku filanta. dhiirigelin baan ka helay faamilkaygii. maadaamaan inanta garanayna aan aqoonna u lahayn sidee baad ku jeclaatay? inanta horta anigu marka horeba waxaan aaminsanahay jacaylku inuu guurka kadib yimaado, ma garata. marka inantu anigu waan caashiqay uun kowdhe. marka waxaan doonayaa insha allah horta waxaan rajaynayaa jacaylku inuu guurka kadib imaan doono, laakiin anigu inanta waan iska caashiqay. waxaana doonayaa inaan asturo, waxaan doonayaa inaan hablaha tusiyo inay jiraan inama wanaagsan. marka waxaan rajaynayaa insha allah inay aqbasho.